adiga iyo xaaskaaga maalin walba in gartiinna loo fadhiyo mustaqbalkiinna uma fiicna awlaaddiinna uma fiicna cid walboo guri leh khilaaf lagama waayo dadku way isqabtaan laakiin way xallisadaan laakiin idinku gartiinna maalin kasta bannaankay taallaa iyaduna waxay uga sheekayn gabdhaha kale ninkaygu waa sida isaguna wax uga sheekaynaya ragga kale ragguna ogow sirtooda ma sheegaan dumarkuna saasoo kale laakiin labadan khilaaf ka dhaxeeyo ee maalin walba gartooda loo fadhiyo iyaduna waxay ku nafistaa dadka kale hadday caawa isqabtaan waxay wacaydaa dumar kale heblaayo ninkaygu waa sidaan unbay ku haydaa war waxaad ogaataa guri walboo dhisan buuq lagama waayo wa inna kathiiran min alquladaa'i la yabqii bacdum calaa bacdin ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat wa qaliilun mahum dadku marka hadday wax isku darsadaan khilaaf lagama waayo ee waxaa la doonayaa sabar in la kaashado labadiinnu ma kala go'i kartaan meesha waxa oolan karta owlaad waa inuu qofku eego owlaaddiisa mustaqbalkooda gabadha waa inay fiiridaa nin kale intay guursan lahayd waa inay keeda waxa weeyaan sasabato isaguna intuu mid kale hadda ka bacdi iyo guur kale uu sii goobi lahaa waa inuu gabadha xaaska ilaahay jalla wacalaa uu siiyey ogow dumar kasta khilaaf lagama weynaye waa inuu iyada hoos u eego laakiin shaydaanku waa cadow dadka marka hore waa isku diraa haddii la kala guurana waa isku keena haddana qaar dalqadihii ay ka dhammaadeen saddexdii isku furay ayaa waxay ku hayaan maxaan samaynaa xal ma noo heli karaan culummadu marka waxaa la rabaa intaan geed iyo odayaal la wacanin waxa yarka ee laga yaabo gabadha hadduu labadan ka shumiyo inay sabri karto hadduu hadal macaan yidha ay sabri karto waa inuu ku dayo iyaduna inay tiraan ninkeeda ilaa waa mustaqbalkeedii waa awlaaddeedii aabbaheed inay waxa weeyaan ku tiraado xaajiyow khilaafkii meeshaan yaallay anaa sabraya mashaakil ma lahan laakiin ma asaa kaa liita maadaa nin weynaya dhamankaagu waa sidaan isagu inuu yidhaa maanaa naag wax weynaya na waa buuxdaaye waa in mar walba la eego ogow dadka wada nool khilaaf ma waayaan dadka wada nool khilaaf ma waayaan waa in khilaafka lagu xalliya marka hadba intuu la eg yahay haddii la xallin kari waayo hadda waa loo bahnaanayaa cid kale laakiin inta badan waa inaan dad la raadinin ilaan labadiinnu waxaa tii laba qofood oo wax fahmaya qof walba waa inuu isku dayo haddii la isqabta inuu madaxa ka sii jeediyo waa inuu soo weyse qaato iyaduna weyse qaadato shayddaanka la iska dheereeyo khilaafka markaa waxa weeyaan waa yaraanayaa laakiin haddii la iska daba waxa weeyaan sheekeeyo la iska daba tirsado waxa ka dhalanaya meel aan laga soo laaban karin in la gaaro marka waxaan rabaa waxa weeyaan inta badan khilaafka guryaha ee bannaanka yaalla waa dad isku waxa weeya ku nafisaya dad kale islaantu hadday odaga isqabtaan waxay wacayda islaamo kale heblaayoy ninkaygu saasa u yidhi waxaasoo iigu sameeyey saanuu ii yeelay kan iima rabo ogow islaamahana shayddaanba ka buuxa markaasay waxay odhan war ninku haddausan ku rabin hadduu noocaas ku yeelay hadduu kida kugu sameeyey ogow ninkeedu waa ku sameeyaa taas kale ay saas dhahaydana ninkeedu khilaafa kala dhexeeya laakiin u sheegi mayso waxay leedahay marka naa nin maahane ka iska fur ninkaygu anuu buskul isiiya iyo caano isiyaaye ogow inta tan kala dhexayda laakiin waa isku diraysaa marka waxaad ogaataa khilaaf kasta cid walba waa ka jiraa laakiin waxa lagu hallistaa waxa weeyaan waa hadba sida laysugu dhow yahay waa hadba sida loo eego danta dadka ka dhexayda marka waxa weeyaan dan weyn baa idinka dhexayda waa mustaqbal waa wanaag waa qiimo waa inaan khilaaf iyo dagaal keliya wax lagu xallinin